Dowladda waddanka UK ayaa xayiraado ku soo rogtay mulkiilaha kooxda kubadda cagta Chelsea ee Roman Abramovich, waxaana laga mamnuucay inuu iibiyo kooxdiisa. Sidoo kalena waxaa laga joojiyay in Chelsea ay iibiso tigidhada lagu daawado ciyaaraha ee garoonka Stamford Bridge ee magaalada London. Roman Abramovich ayaa la sheegay in maalmihii ugu dambeeyay uu helay ilaa $300 oo dalab oo laga doonayo iibka kooxdan oo lagu qiimeeyo ilaa $3 bilyan oo gani. Waxaa kaloo laga xayiray Roman Abramovich inuu iibin karo naadigan, taasoo Chelsea sii gali doonto qas iyo dhibaato aan weligeed meeshan soo gaarsiinin, ayadoo sidoo kalena aanay heli doonin wax maalgelin ah. Chelsea ayaa la siinayaa liis gaar ah oo ay ku sii ciyaari karto, laakiin waxaa laga xayuubiyay faa'iido kasta oo ay heli lahaayeen si loo curyaamiyo Abramovich. Maalqabeenka reer Turki ee Muhsin Berk oo dhawaan sheegay inuu wada hadallo kula jiro Abramovich oo uu doonayo inuu ku iibsado Chelsea, waxaana waqtigaasi tibaaxay in isaga oo wata calanka Turkiga uu u duuli doono magaalada London. Laakiin Abramovich ayaa la sheegay inuu iska diiday inuu kooxdan ku iibiyo lacag gaaraysa $2.5 bilyan oo ay u soo bandhigeen qolo rabtay inay iibsadaan kooxdan Chelsea. Kooxda kubadda cagta Chelsea ayaa lagu soo rogay xayiraad dhinaca suuqa iibka ciyaartoyda, waxaana laga joojiyay ama laga mamnuucay inay heshiisyo cusub sameyso kadib xayiraadda ay dowladda UK ku soo rogtay milkiilihii naadigan ee Roman Abramovich. Balneerka Ruushka u dhashay ayay dowladda UK la wareegtay hantidiisii taalay London, waxaana laga xayiray inuu soo gali karo Britain iyo inuu wax ganacsi ama shaqo ku yeelan karo, iyadoo lagu eedeynayo inuu saaxiib dhow la yahay madaxweynaha waddanka Ruushka Vladimir Putin. Kooxdan ayaa loo ogolaan doonin inay iibiso tigidhada daawashada ee garoonkeeda, taasoo ka dhigan in Stamford Bridge uu noqon doono mid maran marka laga reebo shakhsiyaad kooban oo dadka haysta tigidhada waqtigii sii horeysay sii goostay. Waxaa kaloo kooxda laga mamnuucay inay iibiso dharka sida garamada, kabaha ciyaartoyda, isku joogada isboortiga iyo wax kasta oo la xiriira ganacsiga. Suuqa kala iibsiga ciyaartoyda ee soo socdo ayay ku bilaaban doontaa xayiraadan, waxaana safka tababare Thomas Tuchel oo aan loo ogolaan doonin inuu sameeyo wax saxiix cusub. Arrinta dhibaatada ugu badan ku haysata Chelsea waxay tahay in xataa aan loo ogolaan doonin inay heshiisyo cusub u cusboonaysiiso laacibiinteeda kala ah Anthony Rudiger, Andreas Christensen iyo Kasper Balakota oo dhammaantood si xir u bixi doono xagaaga markuu dhamaado. Ra'iisul Wasaaraha waddanka UK Boris Johnson ayaa warbaahinta u sheegay in dalkiisa uu noqon doonin meel lagu baxsado, iyadoo Ruushkana uu duulaan ku qaaday waddanka Ukraine. Si kastaba, xayiraadahan dhinaca suuqa ee iibka ciyaartoyda, xayiraadda dhinaca iibka tigidhada iyo dharka kooxda, iyo aan loo ogolaanin inay ciyaartoyda hore u sii joogay heshiisyo cusub saxiixana waxa ay Chelsea ugu dhigan doontaa burbur weyn, lamana garanayo sida ay ku dhameyn doonto mustaqbalka iyo sida xataa ay ku bixin doonaan mushaarka ciyaartoyda kale ee heshiiskooda waqtiga badan ka harsan yahay. Chelsea waxay arrintan saameyn weyn ku yeelan doontaa ciyaartoyda magaca weyn ee xilligan ka dheelaya garoonka Stamford Bridge ee waqooyiga magaalada London.